Fanaanka Ila Yare waxa uu ceshan waayay ilinta waxay ku dhacday dhulka. Dadka oo dhan ayaa ku soo xoomeen. Dadkii oo dhan ayaa ilinta ka tirtirayay. Dareenku waa mid uu ceshan waayay inuu ilinta daadiyo. Fadlan nagu soo biir saaxiib marka hore oo muuqaalka like noo dheh si aan xogtaan oo xaqiiqa oo dhameystiran muuqaalo iyo sidoo kale warbixino qeybaha dhexe iyo qeybaha dambe aan kugu soo gudbino iyo sababta ka dambeysay inuu ilimeeyay Ila Yare. Fadlan subscribe saar kana mid noqo saaxiibada halkan aan si maalinle ugu tabino warbixinada. Waxaan ahay Saacid Karaama. Fanaankan dhalinyarada ee Ila Yare ee muddooyinkii dambe aad ugu xanuunsanaya dalka marna loo qaaday dibadda ee caafimaadkiisa dib u helay ayaa mar qura waxa uu sameeyay maadaama uu caafimaadkiisa dib u helay. Ila Yare ayaa horey u sheegay in gebi ahaanba fanka ilaa in muddo ama sanado uu ka nasan doono saaxadda fanka ee aadka loogu jeclaa guud ahaan Soomaalida oo dhan. Ila Yare waxa uu ka mid yahay fanaaniinta ka masraxeeya aroosyada, fanaaniinta aroosyada waaweyn ka qaada heesaha, fanaaniinta lamaanayaashu ee aad u jecel yihiin inuu ka mid noqdo kuwa heesaha u qaado ee badi ay doortaan codkiisa alaasiga ee aadka ugu diyaarsan. Isla markaana Ila Yare oo qayb ka yahay fanaaniin fara ku tirisa oo shacbiyad badan ku leh guud ahaan shacabka Soomaaliyeed oo dhan. Ila ayaa mar qura markii uu ka soo laabtay dalka Jarmalka u imaaday caasimadda dalka ee Muqdisho. Muddo badan oo joogay caasimadda Muqdisho waxa uu hadda u dhoofay dalka Kenya ee caasimadda Nairobi. Fanaanka Ila Yare ayaa markii uu garoonka ka degtay waxaa soo dhaweeyeen boqolaal dad ah kuwaasi oo saaxiibo iyo sidoo kale ehelo iyo sidoo kale dad aad ugu dhawaa qayb ka ah. Ila Yare ayaase markii uu arkay garoonka nin hadda madaxweyne oo kale ayaa loo soo dhaweeyay, ma aha nin khayrul caadiya. waxaa loo soo dhaweeyay nin madaxweyne oo kale ah. Ila durbe ilinta ayuu ceshan waayay waana ooyay garoonka dhexdiisa. Markii uu diyaaradda ka degtay dadkii goobta ku soo dhaweynayay gabdho iyo wiilal ayaa Ila laabta geliyeen, qaar ilinta ayay ka tirtireen. wariyaashii muuqaalada duubayay kuwii tabinayay ayaa dhammaantood aad uga naxeen sababta uu la ooyay Ila. Ila ayaa la weydiiyay sababta uu la ooyay. Wuxuu yiri Ila uma malaynaynin dadkayga oo dhan inay jecel yihiin ilmahayga, waxaan u haystay inay cidlo joogaan, laakiin waxa uu yiri waxa aan dareemay in ay yihiin dad heesta garab, dad heesta hooyo yaal iyo aabayaal. Wallaahi waxa uu yiri waxaan jeclahay dad Soomaaliyeed, waxaana aaminay inaan dad leeyahay hadda, laakiin markii hore maanan aaminsanan ayuu yiri inaan dad badan leeyahay, waayo intii aan maqnaay xitaa caruurtayda wax walwala kama qabin. intii aan maqnaay xitaa caruurtayda daqiiqad iyo saacada ayay igu dhihi jireen aabba jawigu waa degan yahay, aabbo hebel iyo heblaayo ayaa nala joogaan, aabba xalay ayay nala seexdeen iyo ereyo kale oo wanaagsan. Fanaanka Ila Yare ayaa ilaa gurigiisa loo sii galbinaya ama la geenayay ilinta ka daadanaysay, kaasi oo sheegay waxa uu la ilimeynayay inay tahay dareen dabciya iyo sidoo kale dadnimo oo ka dareema dadkiisa Soomaaliyeed. Ila waxa uu ka mid yahay fanaaniinta Soomaalida ee dadku aad u jecel yihiin. waa aabba dhalinyaro ah oo haysta caruur aad u daayar iyo sidoo kale kuwa aad u waaweyn. maadaama uu dhexda u xirtay Ila waxauna ka mid yahay fanaaniinta geyiga Soomaalida oo dhan aad looga jecel yahay. waxa uu ka sameystay dad badan oo shacbiyada kuwaasi oo u muujiyaan jaceyl, taageerayaal iyo sidoo kale inay garabkiisa taagan yihiin. sanadkan dhamaadkiisa markii uu Ila mar qura xanuuno badan ay deheysteen ayaa badi Soomaalida u kaceen, kuwaasi oo mar qura dalka dibadiisa loo qaaday. Ila waa ilimeeyay, weliba dareen ayuu ku ilimeeyay. saaxiibkayga iyo saaxiibadana daawanayo fadlan subscribe noo dheh, muuqaalka like saar oo si ay warbixinada iyo xogahan halkan idin kugu soo gudbino